بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا ليال لبدي فيديو هوري قوليقا وحا arrimahan aan wado oon weli goboldhigii kusii jiro aan idinku yara raajiyo sababtoo ah dadku maaragtay hadalka dheerna way ma dhegaystaan oo samir uma laha markaa sidaa darteed baan idin soo ahay dee mawaadiic aan mar keliya ka hadli lahay oo qaadan lahaa fana waan idinku googooyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي عجلدي لبعض فيديو لبعض رياكشن كي كذا شيء كي هو كلوي لكن ضد با ما رحت كنتي سؤال إسكا إيه ويدي كالنتا أنت قبيل ك أنك هذلي يوقفك أيه ضد كغارو أكسيدي ما رحتين labada arrin inaan kala ballaariyo waxaan ka hadlayaa ma qabiil baa mise waa qabyaalad labada qodob waxay kala yihiin qabiil waa abtirsiin waa nasab oo wax ilaahay inoo soo dejiyey waa waxaynu isku garanayno oo ilaahay uu inoo sheegay waxa kaliya sababta ay qabaylka laynooga dhigay inaynu isku garanno oo xuquuqdii iyo dhaxalkii iyo guurkii iyo arrimihii oo dhan bay ku xidhan tahay waa arrin dhaqan taasi cidina ma diidana nin waliba reerku yahay iyo nasabku yahay iyo ciddu yahay buu yahay waxa meesha ku jira waxa weeye qabyaalad marka la yidhaaho ama tribalism oo qabyaaladdu waxay noqonaysaa ismkaasa wuxuu ka dhigayaa wax xaaraana waxa weeye aad u eexanayso group ood ka eexanayso qof runtuna markay timaado qabyaaladda qof baa kuma caasha kuma kuna way ku khasaaraan qarannimadana qaranko dhan baa ku badbaada marka waxaynu u baahannahay war qofku haddii reerkooda oo waxtaraya iyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo xididkiisa oo wax ilaahay baneeyey laakiin waa hantidiisa iyo wixiisa u gaarka ah iyo waqtigiisa u gaarka ah inuu ku camal falo uu taawo laakiin wixii waqtiga uu hawsha hayay qaranka iyo xoolihii ummadda ee laga soo ururiyay dadka masaakiinta ah waa weeye baytmaalkii islaamkaynu ku dayanaynaa waa loo sinaa asxaabteenu cumar bin khataab iyo abubakar bin sidiiq waxay qaadan jireen intuu qaato mushahar ninka mujaahidka ee caadiga ah ciddii maamulaysay qof kasta oo ma garanaysaa baytulmaalka wax ka qaata waa loo sinaa taasi oo aynu kaga odhan karto waa tii ugu horreysay dowlad adduunka jirta oo xadida ninka ra-iiska mushaharkiisu waxay ahayd nidaamka islaamka boqoradii hore ee jiri jiray ilaa xataa generationkii dambe qarnigii 18aad waxay ahaayeen dad iyagu leh dadka iyo maalkaba ay xukumaanba iyaga leh sida doonaan ugu takrifalayay laakiin islaamku ilaa abubakar sidiiq laga bilaabo waxay xadideen mushaharka xataa ninka ra-iiska uu qaadanayo ciddii ugu horreysay xadida ee kala saarta wixii ummaddu leedahay loo maamulayo iyo wixii qofku gaar u qaadanayo ayay ahayd markaanu tan ka hadlaya qabyaaladdu waxa weeye arrinta xun ee eexda keenaysa dhibaatada inoo keenaysa ee koox yar ku shaqaysanayso arrinta haddaan bulshadu aynay gacanta intay isqabsato aynay dhaqankaa bedelin xukuumadda ma bedeli karto mucaaradna iska badaa laakiin waxa weeye arrimahan jecelahay in mucaarad iyo muxaafidba laga madaysnaada waxa weeye isbedel dhaqan ummad baa keentay ma keento xukuumadda taasaan idinka doonayaa aynu iska kaashano sidii dhaqankan aan u bedeli lahayn oo aan ku bedeli lahayn dhaqan fardiya haddaad imanka eegto sharciga inoo qoran ee dastuurkeena meel uu qabiil kaga yaalo iyo xuquuq qabiil ma jirto dhammaantii wuxuu ballan qaadayaa xaqa muwaadinka isagoo qof ah muwaadinku xaq buu leeyahay inuu issharaxo iyo inuu wax doorto muwaadinku xaq buu leeyahay inuu ganacsigiisa iyo nabadgelyadiisa helo muwaadinku xaq buu leeyahay in caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa xukuumaddu daryeesho muwaadinku fardi baa laga hadlaya marna meelna ku arki maysa lagaga hadlayo qabiil kaa haddaan ku soconno oo aynu ku dhiirano waxaynu helaynaa in dadku ay kaga baxaan qabyaaladda matal baan idin sheegayaa marka sida looga baxayo waxay soo maray baan idin tilmaamaya waxa weeye dadkaynu maaragtay had iyo jeer wixii negative ah iyo wixii xumaana ee intii ay noolaayeen arkeen bay dadka lagu celceliyaa markaasay dadkii noqdaan ay niyad jabaan anagu markaan iskuulka ka baxnay generationkii 70-adii ka baxay baanu ahayn
قبيل كمان نقون محن نودي ذي إنه قبيل كنا قانو بكوا waxa loo diidayay waastana uma aan baahnayn nidaamkii markaa yaalay ee la dhigay ayaa wuxuu ahaa ninku hadduu ka soo baxo secondary imtixaankiisa inta loo eego inuu ku shaqo tago uu ku jaamacad galo aanu u baahan waasto aanu u baahan reer aanu u baahan faylus daba sido nidaam fiican buu ahaa laakiin wixii ka dambeeyay waynu ognahay oo waxa weeye guri fiican inta dhistay ee dawladii kacaanka inay hadana dumisay dhibtayna haysan maantana ay tahay tii iyadoo ay ka tagtay oo burburkii ummadda burburisay marka xumaanteedii waynu ka dheregsannahay laakiin xilli ay wax wanaagsan ku kacdayna wuu jiray xilligaas oo kale waxay daliil u tahay ummaddu markuu fardigu xaqiisa helo uu og yahay inuu shaqo ku helayo qof ahaantiisa iyo kartidiisa uu og yahay inuu ku badbaadayo qof ahaantiisa iyo shakhsiyadiisa uu og yahay inuu ku meel marayo shakhsiyadiisa wuxuu reer uga baahan yahay iyo cid waastaysa ma jiro marka laakiin maanta inuu eegnaba qabiilka maanta jira ninka qabiilad ku dooranaya waxa weeye qabiilka intuu wax taraa ninka wasiirka intee buu reerkooda wax taraa waa tiro yar oo kooban oo u badan intanaysta bulshada inta weyn ee reerkooda yihi bulshada ay ka mid tahay waxay ka faa'iido lahayd isagoo bulshada guud wuxuu qabtaa ayuu tulkii intiisa badan ay ka faa'iido lahayd laakiin in yar oo afmiishaara ah oo fara ku tirisa ayaa reer walba wasiirkooda wax ka tira oo bulshadii saa u haysata maskaxdoodii waana kuwaynu doonayno inay bulshadu ka xorowdo maskaxdoodu inay ka baxdo inay aragto reer waliba intiisa badani inay la dan tahay reeraha kale reer awdal iyo reer ceerigaabo iyo reer sanaag iyo reer saaxil iyo reer togdheer iyo reer maroodi jeex dhammaan waxay yihiin dad dan wadaaga oo dantu ka dhaxayso bulshada inta badani waxay ku badbaadaysaa oo ku horumaraysaa waxa weeye marka fardiga la ixtiraamo ee ninka muwaadinka xaqiisa la ilaaliyo ayuu ka baxaysaa afmiishaarada iyo dadka ku shaqeysa qabiilka markaas laga adkaanayo taasi ma dawlad baad ka sugaysaa maay dawladdu kama weyna shacabka haddii shacbigu wada doonayo inuu xumaantaasi ku jiro oo kuwa mucaaridka ah ay doonayaan inay qabiilka ku shaqeystaan radda ficilka xukuumadduna wuxuu noqonayaa muddo yaroo gaaban baa la doortee inay badbaado oo ay khatarta iska ilaaliso ay u aragto marka bulshadu waxaynu u baahanayn inagoo gacmaha is haysana in xukuumadduna inoo jeexdo dariiqa inaguna inuu garbaha gallo oo aynu ku xorowno arrinta ugu weyn ee dalkeena hortaagan horumarkiisa khatar ku ah nabadgelyadiisa khatar ku ah dhaqaalihiisa kulmadiisa waa qabyaaladda wey taasi aynu ka hormarro aynu markaasi aynu dhisno bulsho fardigu qiimo leeyahay bulsho qof waliba kartidiisa iyo aqoontiisa uu la siman yahay muwaadinka kale aan xaq cidina kaga duugsiyeynin wuxuu xaq u leeyahay isagoo qof ah isagoo aan qolo ahayn oon qabiil ahayn oon jilib ahayn isagoo gobol ahayn oon degmo ahayn taasi bay dadku ku walaaloobayaan taasaynu walaalo ku wada noqonaynaa taasaynu u baahannahay maantana intaasaan idin caddeeyay waxay ii xigi doontaa waxyaabo kale oo fara badan oo arrintani ay taabanayso oo qaarkood adayaamahan maqlayseen waxyaabaha laga hadlayo waxaan u baahannahay walaalayaalow xukuumadda ha ku eegina keligeed soo baxa afkaartiina dhiibta xukuumaddu waxay inoo ogoshahay inaynu wixii ra'yiga ee constructive la nimaadno markaynu wax wanaagsan inagu la nimaadno mucaaridkuna aanu ka faa'iideysan qaladka lagu jiro ummadda waayo waxa siyaasiyiintu had iyo jeer waa dad waxa weeye ishaya markay ishayaan haddii gurubu faa'iido ugu jirto qabyaaladda ka kale kama baxayo laakiin markay labadooduba arkaan inay waxan bedelaan waxyaabaha dhaqanka ah waxa loo baahan yahay wadajir in lagu bedelo ee aan cidna looga faa'iideyn intaasaan idinka baxayaa hadalka ma aragtay waan idin soo gaagaabinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo kulan dambe iyo dhegeysi wanaagsan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa filceliskii faraha badnaa ee idii soo dirteen iyo iimaylada igu soo jawaabteen iyo facebookaba aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu